ardayda wax ka barta dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle ayaa u fadhiistay imtixaanka kama dambaysta ee sanad dugsiyeedka 2021 iyo 2022 dugsiga hoose dhexe iyo sare ee horseed ee magaalada Jowhar oo kamid ah dugsiyada waxbarasho oo ay maamusho wasaaradda waxbarashada Hirshabelle ayaa kamid ah dugsiyada maanta ardayda dhigato u bilowday imtixaanka qaar kamid ah ardayda u fariistay imtixaanka wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee horseed ayaa ka warbixiyay dareenkooda maanta oo ah maalinta koowaad ee u bilowday imtixaanka anigoo ah magacayga Faadumo Muuse Mukhtaar oo dhigata dugsiga horseed primary and secondary school waxaan ka tirsanahay galaaska form 3 waxaan jeclahay inaan guuleysto oo sanadka dambe form 4 aan taga ayaan jeclahay waxaan mahad iskale macallimiinteena iyo waalidiinteena nagu dhiirigelisay in aan wax barano macallimiinteen aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa imtixaanka waxaan ka rajaynayaa guul waxaan rajaynayaa kaalmo ugu horeeya in aan galo imtixaankan si fiican ayaa ugu soo diyaar garoobay waxaan jeclahay inay macallimiintee guul ayaan ka rajaynayaa waxaan ka filayaa maasha Allah macallimiinteega waa ogaay waxaan ka rajaynayaa in ay wax fiican noogu keeni doonaan أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجيء وكرنا عبد الرحمن حسين أنا قاعد دكتور سكول كدكسي قاعد حسر هرسات وحنا هاي أرضي كمدة سكول كورسات وحنا هاي كلاس كفوم تري ما شاء الله درينكي وعديب صبطة وحبضنا يا جروس بدلي سانو ما نقول جرين امتحانك نقصنا إلى الجري لكن ما أنت امتحان عصب ويو جاب عصب على كلني وحبضنا بايس بدلي مجيء محمد عبد السمت أنا قاعد دكسي كورسات أنا كلاس كفوم تري maanta waxaan oo bilaawanahay imtixaankii ugu dambeeyay maalinta koowaad ay noo tahay imtixaanaadka aan galan jirnay ma anaga duwan yihiin ma sha Allah macallimiinta juhdi badan ay nagu soo bixiyeen anagana waan dadaalnay imtixaanaadkii hore waan naga duwaynay ardaydan man sidii hore ma ahan arday shanaad iyo mid form 3 arday lixaad iyo kii oo waxa isla fadhiisanaya marka aniga waxa ila fadhiyo wiil oo shanaad camal marka anagana waan dadaalnay magacaygu waa Maxamed Aadan Xuseen waxaan ahay fasalka form 3 waxaan loo dhiman hal sano iskuulka waa horseed primary secondary macallimiinta aan wax barto waa macallimiin aad u wanaagsan oo nala dadaalay sanadka dhan nala soo socdo waxaan hadda gali rabnaa imtixaanka ugu dambeeya quraanka waxaan ka rajaynayaa guul maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee horseed Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa sharaxaad ka bixiyay hanaanka maamulka dugsiga uu qaadayo imtixaanka dugsigan hoose dhexe iyo sare ee horseed maanta waxaan u fadhiisanaynaa imtixaankii termka labaad ayaan u fadhiisanaynaa ee dugsigan horseed ee Jowhar marka maanta ardayda hadii Ilaahay raali ka noqdo waxay diyaar u yihiin inay galaan imtixaankii kama dambaysta ahaa marka laga reebo fasalka 8aad iyo fasalka form 4 marka laga reebo maanta waxa gali doona fasalka koowaad ee dugsiga hoose ilaa iyo form 4 inta u dhaxaysa ayaa gali doonto insha Allah hadii Ilaahay raali ka noqdo waxaa kaloo sameeynay arday walba wuxuu dhigtaa fasalkiisii imtixaanka kuma gali doono waxaan sameeynay ardaydii waa isku dhafnay arday waxaan helnay aan aragnay in fasalka koowaad labaad saddexaad afraad aan fasalada u qaybinay Sheekh Maxamed Yuusuf Xasan oo ah kormeeraha waxbarashada gobolka Shabeellaha Dhexe ee wasaaradda waxbarashada Hirshabelle oo xilli howlo shaqo u joogay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee horseed oo la hadlay telefishinka Hirshabelle ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in dhammaan ardayda wax ka barata dugsiyada waxbarasho ee magaalada Jowhar uu bilowdo imtixaanka waxana uu rajeeyay guulo inay ka gaaraan imtixaanka laga qaadayo Ilaahay baa mahadle maanta oo Sabtiya bisha shanaad ay tahay 22 waxa noo bilaabanaya hadii aan nahay dawlad goboleedka Hirshabelle imtixaankii naqliga ahay kii shahaadiga ay waa noo dhiman yahay 8aadka iyo form 4 ka waa noo dhiman yahay hadda waxaan ka nimay dugsiga Sheekh Xuseen Cadde oo aan soo ogaanay oo soo bilowday haddana waxaan joognaa horseed ayaan joognaa dugsiga horseed aad iyo aad aan ugu faraxsanahay imtixaanku waa bilowday Cabdiraxmaan Cali Diiriye Cabdiraxmaan Mideeye Hirshabelle TV magaalada Jowhar